qalab caafimaad oo loogu talagalay cusbitaalka guud ee magaalada Boorama iyo cusbitaalka Allaale ee Fistulaha lagu daweeyay xanuunka isku furanka haweenka ayaa waxa guddoonsiiyay qalabkaasi oo ka koobnaa qalabka cusbitaalada ee caafimaadka ururka gargaar oo fadhigiisu yahay dalka Denmark magaalada Aarhus. guddoonsiinta deeqdan caafimaad ee la guddoonsiiyay cusbitaalka guud ee magaalada Boorama iyo cusbitaalka Fistulaha lagu daweeyay Allaale ayaa waxa goobjoog ka ahaa Cabdilaahi Aw Muuse Habane oo kamid ah saraakiisha sare ururka gargaar ee fadhigiisu yahay dalka Denmark iyo madaxa cusbitaalka guud ee magaalada Boorama Dr. Ismaaciil Xaaji Maxamed Aaye iyo madaxa cusbitaalka lagu daweeyay xanuunka Fistulaha ee isku furanka haweenka ee Allaale Dr. Saciid Axmed Walhad. Cabdilaahi Aw Muuse Habane oo kamid ah sarkaalka ka socday ururka gargaar ee fadhigiisu yahay dalka Denmark ayaa sharaxaad ka bixiyay qalabka caafimaad ee guddoonsiinayaan cusbitaalada Boorama ee Allaale iyo cusbitaalka guud ee magaalada Boorama waxaana kamid ah hadalkiisii deeqdan aan dhex joogno oo ah qalabka cusbitaalada oo ka timid ururka gargaar oo fadhigiisu yahay wadanka Denmark gaar ahaan magaalada Aarhus. aniga oo mas'uul ka socda ururkan waxaan wareejinayaa magacayga la yiraahdo Cabdilaahi Habane waxaan ku wareejinayaa deeqdan maamulka cusbitaalka Allaale aniga oo mas'uulka tirsan ururka gargaar waxaan ku wareejinaynaa dalka guud ama cusbitaalka guud ee Boorama isku duwaha caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Hadin iyo agaasimaha cusbitaalka guud ee Boorama Dr. Ismaaciil Maxamed Aaye ayaan deeqdan ku wareejinaynaa. sidoo kalena waxaa ka mahad ceshay mas'uuliyiinta cusbitaalada Boorama ee kala ahaa agaasimaha guud ee cusbitaalka magaalada Boorama Dr. Ismaaciil Xaaji Maxamed Aaye iyo madaxa cusbitaalka lagu daweeyay xanuunka Fistulaha ee isku furanka haweenka Dr. Saciid Axmed Walhad waxaana kamid ah hadaladoodii waxaan ii ballan qaadaynaa dadkii loogu talagalay inay gaadhaan ilaahayna inagu jazakumullahu khayr intii marka hore waxaan aad mahadnaqayaa ururka gargaar oo hawshan ama deeqdan soo gudbiyey aanay ahayn sidii isku duuba sheegay markii uu horeeyey iyo muddo badanba sanado badan ay soo jiitamaysay oo waxa ay runtii qalabka caadiga ah kuwa medicalka aan ahayn oo dhan ay sirataayeen difashaadka iyo deeqda qalabka kuwa ay wheelchairs waxyaabaha hoose isbitaalka looga baahan yahay dhammastiray isaga ayaa iyaga keenay ka oran karna gargaar waxay wax dhabar u tahay isbitaalkan Boorama runtii kaliya kan uu keentay uu ma ahayn laakiin meelo badan oo caafimaad waxa ka qabtaan Fistulaha mar badan bay keentay Allaale halkaas ilaa ayaa xayaat qalabka inta soo saray waxa qaban iyaga ayaa keenay. dhanka kale Cabdilaahi Aw Muuse Habane oo ahaa sarkaalka ka socday ururka gargaar wuxuu warbixin ka bixiyay ururka gargaar oo cusbitaalada Soomaaliland badankooda siiyay qalabyo caafimaad oo noocan oo kala ah sida cusbitaalka Hargeysa, Berbera, Salaxley, Gabiley, Burco iyo meelo kale oo kamid ah magaalooyinka Soomaaliland. maaha markii ugu horeysay cusbitaalka Boorama iyo cusbitaalka Allaale ururka gargaar siiyay qalab noocan oo kala ah laakiinse wuxuu hore u guddoonsiiyay qalabyo iskugu jiray qalabyada caafimaadka. Haashim Sheekh Cumar Good, Somalisat TV, Boorama.